shirkan waxaa lagaga hadlayaa suuqa xorta ah ee Afrika waxaana isugu yimiday dad badan oo dibadda ka yimiday oo martino ah annaka rugta ganacsiga ee Djibouti iyo rugta ganacsiga ee Afrikaanka Pan-Afrikaanka ee sanadkan aan madaxa ka ahay ayaa iskaashatay si ay u wacyigeliso macaamiisha ama dadka shirkadaha gaarka leh in aan ka qayb qaadano suuqa laga hadlayo leeyahay milyaar iyo 200 milyan oo qof ayaa la isku gudbin karaa Afrika gudaheeda wixii badeecada amba wixii maxaan ku rahay macaamiisha isku gudbi karaan si ay wada shaqaysan karaan ayna isku weydaarsan karaan wixii khibrad ay leeyihiin shirkani wuxuu ka qayb noqonayaa shirarka ka dhaca Afrikada ee ku saabsan sidii loo hirgelin lahaa mashruuca ah 2063 African Union ay qaban qaabiso oo ah in wadanadu ay horumar ku sameeyaan si ay dadka ku nool Afrika ay u helaan nolol tan dhaanta shaqo laga abuuro horumarna laga gaaro in dadkii ka shaqaysanayay Afrika ee macaamiisha ay sarkaan ay ka xaajoodaan iska maxaan ku rahay arkaan waxyaalihii ay ka jiraan carqalad ay ka jirto taana waxaa la kaashanayaa madaxda maxaan ku rahay wadanada Afrika wadogtahay wadankeenu wuxuu noqday kii ugu horeeyay amba waxaan oran karnaa wadanada ugu horeeya ee Afrika ee isku gudbiya wadan kale dhaqaale ahaan dad ahaan si loo wada shaqaysan karo